السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يقوى السلامي ميل بعدون كجوكسان ولاش النجم MBR هالك دقة دابنا السنة و MBR قروح دمر إن فيديو أنا حلا يسوق لي وحد هذا النجم وحبة كمان فهمين إن أنا جا نفتر كي قنجرها إحنوناين at the same time مدرو حد ديدنا فيديو جينا وقت جليو ومارتي فيديو وإذا كل هذا ديدنا سو مركا هذا مر لبعض السوء لنا وحتى مساد دلقات أتكون ميسة ديالو انت ونلا gaaraba caawa waxa soo gabagabeynaya waxyaabahan leega baahan yahay inaad sameeysan si aan u bilaabano challenge-ga markaad video-ga dhameysatid make sure inaad like gareysid oo share gareysid make sure inaad soo xaqiiji inaad snapchat-kayga tagtid oo aad soo maartay soo subscribe saartid oo halkaas aad martay kala socotid waxyaabaha aan subaxdii soo dhigayo ha ilaawin inaad video-gana like gareysid oo aadna share gareysid challenge-gan inaad ku soo biirtid waxa ka xigo inaad leedahay kalsooni inaad naftaada go'aan buuxo aad soo qaadatid oo aad dhahdid naftaada intaad meel la fadhiisatid nafihe yarta ah sanadkan hadduu ilaahayga waaxidka weynaa caafimaad uu isiiyo waxaan u kaba gashtay inaan maqaarkayga skinkayga qurxiyo inaan caloosheedii iyo bawdiyahayga iyo jirkayga hadday jeexjeex leeyihiin xilligay rabtaba hay ugu qaadatay inaan ka saaro haddii aan leeyahay maartay calool inaan calooshaas iska jaro haddii maartay timahaygu ay yihiin timo aan baxaynin inaan maartay timahayga la tacaalo oon waqti geliyo baan u baahanahay naf yahay go'aankaasna waan qaatay inaad ku dhihi kartid naftaada shaydaanka lagu sheegayo waxa ka daran naftaada inaa horumar samaysan adduuni aakhira u shaqeysato marabta wax kasta waxay ka saaraysaa culays waxay ku leedahay waxaan maxaad ka isticmaalaysaa waqti bay qaadanaysaa waxaan ma time baad u haysaa ilmo yar baad haysataa waxaan maartay waqti siin kartaa no waxaas dhan waa inaad iska soo jirtid oo naftaada meel iska saartid kalsooni buuxda aad soo qaadatid gabar isku kalsoon aad noqotid aadan fiirinin naagaha kale waxay isku cadeeyaan in naagaha kale oo skinkooda quruxsan adiba skinkaaga maalin buu quruxsanaan doonaa sawirka meesha ay idin soo saaray wajigayga saan buu ahaan jiray saan hadda uu wadaabowba sidan si ka daran buu ahaa 2019kii haddana alxamdulillah shukrullah 2020gii guushi allaha waa gaaray marka adiga markaad go'aan qaadanaysid qof kale noloshaada hala barbar dhigin intaas markaan oga baxo marka challenge-ga waxaa ka bilaabaysaa kow inaad heshid hurdo fiican 8 saacadood oo hurdo ah inaad habeen walba inaad xilli hore seexatid challenge-ga maartay taas koowaad ka bilaabaysaa labo inaad tahay gabar maartay jimicsi samayso subax walba markaad soo kacdid ilaahiga waaxidku ina caafimaad kugu soo kiciyo waa inaad exercise aad samaysid exercise-yada aad sameynaysaan waa idinla wadaagi doonaa exercise-kaas wuxuu kaa caawinayaa calooshana inuu ku yareeyo jirkaagana maasha Allah tabaaraka Allah uu ka dhigo dhididna uu ka keeno the more uu dhidid ka imaado waa the more caafimaadkaada uu kor u kacayo maartay skinkaagana uu qurux badnaanayo midda saddexaad waxay tahay inaad cabtid cabitaanada cagaarka ah waxyaabaha cagaarka la cabo maartay la isku shiido ayakana waxyaabaha la isku shiido waa idin soo gelin doonaa snapchat-ka tag soo subscribe garee waxaa kaloona looga baahan yahay inaan sameyno inaan dhakhtar tagno haddaadan dhakhtar kala kulmaysaa waxaad soo baaraysaa vitaminadaada waxaad soo ogaanaysaa jirkaaga waxa vitamin oo ka maqan maxaa keeni karo inuu skinkaada qayirmo waxaa keeni karo inay tintaadu daadato maxaa keeni karo inaad maartay uu kugu soo degdego cimri degdeg maxaa keeni karo inaysan haartan wajigaada ku taala aysan bixin kow waynaad dhakhtar la kulantid dhakhtarkaaga waxaad iska baaraysaa thyroidka dumarkaa qabaan inta badan 80% dumarkaa qabaan thyroidka hadduu kugu kacsan yahay waa qanjir halkan ku yaalo hadduu thyroidka kugu kacsan yahay daal fara badanna waa dareemaysaa haarana way ku galayaan wajigaagana wuu qayirmayaa marna waa daalaysaa marna maartay waxaad noqonaysaa qof very very active ah oo aad iyo aad aan u daalin oo mar walba soo taagan aaba daalayninba waa calaamadaha ugu weyn oo lagu garto thyroid markaad intaas iska soo taxdid oo dhakhtarkaaga u tagtay oo habeenka xilli hore aad seexatay ilaahay kuma darnaadee aad jimicsigaaga samaysay waxaad ku daraysaa maalinta ugu yaraan inaad 6 litir oo biyo aad cabtid dhalada halkan aan idin soo saarayo tan oo kale maalin walba 3 maalin walba tan
inaad dhamaysid 3 ilaa 4 jeer inta ka cabi kartid challenge waa noogu soo dari doona anigoo sameeynaya maalin walba Snapchat ka ilaabin biyahaas ina aad iyo aad u cabi kartid maalin walba biyahaas qasab hadaad cabi karin biyaha kaligood ah waxaad sameynaysaa waxaad soo qaadanaysaa liinta loo yaqaano lemonka ee cagaarka ah liin dhanaanta yellowga ah jaalaha ah aad jarjaraysaa si balbalaarna u jarjaraysaa waad ku dhex ridaysaa in yar waxaad soo qaadanaysaa spinach baby spinach ka ay dhahaan waad ku dhex ridinaysaa biyaha dhadhankooda isbedelayo waad cabaysaa marka si uu skinkaaga u helo qoyaan skinkaaga si uu u helo intaas markaan ka soo hadalnay waxaan bilaabaynaa hadda inaan ka hadalno si aad u fahantaan waxyaabaha aan wajiga marsan lahayn skin care-ka loo yaqaano waxyaabaha wajiga la mariyo ama jirka la mariyo subaxdii markaad soo kacdid subaxdii aan ka bilaabaynaa waxaa la yiraahdaa AM iyo PM AM subaxnimo subaxda hore markaad soo kacdid waxaad sameynaysaa gacmahaaga dhaqaysaa gacmahaaga adoonan dhaqin wajigaaga gacanta ha saarin gacmahaaga waxay wataan bacteria aadan adiga arkeenin gacmaha markaad dhaqdid oo gacmaha nadiifisid waxaad sameynaysaa wajigaaga waxaad soo qaadanaysaa face wash alla face wash ka adiga markaasi kugu haboon oo kuu shaqeyso hadaad tahay oil skin hadaad tahay dry skin iyo hadaad tahay maartay combination isku dhex jir hadaad tahay waxaad wajigaaga u yahay saabuunta ugu haboon oo kula shaqeyso markaasi iyada ay soo qaadanaysaa wajigaad ku dhaqanaysaa wajiga markaad ku dhaqdid waxaad soo dhaqday oo wajiga aad soo nadiifisay waxaad isticmaalaysaa tonerka wuxuu sameeyaa wajiga wasaqda ugu dambeysay oo ku dhagay wasaqda u dambeysay wajiga ayuu ka saaraa iyo dulduleelka wasaqda ku dhagan ayuu wajiga ka saaraa inta badan dadka way isticmaalaan inta badan dadka bay isticmaalaan hadaad isticmaalaysid isku day inaad isticmaashid asaga oonan wax caraf aan lahayn wax walba oo isticmaalaysid skin care waxaad iska ilaalisaa inaysan ku jirin wax caraf ah markaad isticmaashid waxaad ku xijinaysaa maartay vitamin C moisturizer vitamin C serum oo natural hadaad haysatid waxay ku siinaysaa brightening ku siinaysaa wajigay ku dhalaalinaysaa waa subaxda hore waxaan ka hadlayaa si fiican ii fahma markaad vitamin C ga aad marsatid waxaad ku xijinaysaa hadaad haysatid niacinamide hyaluronic serum hadaad haysatid waa ku darsan kartaa waxaad ku xijinaysaa moisturizer waa kareemka siiyo wajiga qoyaanka ama jirka qoyaanka siiyo moisturizerka aad iyo aad u fiican yahay wuxuu ka ilaalinayaa wajigaaga inuu tutub iimiin waxyaabahaas ka galo mar walba wajiga inaad qoysid way fiican tahay hadaad dry skin tahay iyo hadaad oil skin tahayba markaad ku xijisid waxaad ku xijinaysaa kareemka qoraxda waa muhiim kareemka qoraxda asagana wajiga wuxuu ka ilaaliyaa tutubka miinka haar inay ku gasho discoloration inuu kugu dhaco wajiga inuu ka qayirmo ayay ka ilaalisaa inta markaad isticmaashid maalintii subaxdii markaad soo kacday inta markaa wajigaada ku sameysay waa natural skin care routine morning maalinlaha skinka maartay waxyaabaha aad u qaban lahayd maalinlahaaga wajigaaga waxyaabaha aad u sameyn lahayd waa hadaad tahay qof shaqo aado ama maaragtay salaada markaad tukatid oo kale kareemkaaga qoraxda ah baagaha kuugu jiro ama meel dhow ku mar walba wajigaaga aad ka dhaqdid hadana waa inaad marsatid taasi waa subaxdii maartay skin care routine aad sameyn lahayd hadaad doonaysid inaad wajigaaga aad u sameysid waxyaabaha lagu cadaado ama waxyaabaha maartay lagu dhalaalo adigoona maartay wax chemical ee qasqas aad isticmaalin waxaan kaga soo hadli doonaa video kale hadaad u baahan tihiin commentiga igu soo qora laakiin hadda waxaan ka hadlayaa waxay tahay waa natural skin care routine inaad wajigaaga maalinlaha u qurxisid si dabiici ah taas waxday ahayd habeenkii markay noqoto habeenkii marka laba shay oo aad iyo aad muhiim u ah oo la isdaba marsado ayaa jirto habeenkii oo kale intaada seexanin waxaad sameynaysaa wajigaad dhaqaysaa hadaad wajigaaga uu leeyahay maartay makeup uu marsanaa kareemka qoraxda maanta dhan uu ku marsanaa waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid cleansing balm waxay kuu sameynaysaa waxay ka fujinaysaa wasaqda markaas iyada ah make-upka ama maartay kareemka qoraxda ku dhadhagnaa wajigaaga ayay soo fujinaysaa si fudud ayay usoo fujinaysaa adoona wajigaaga xukin kadib waxaad qaadanaysaa maro ama tiish oo fudud ayaad wajiga iskaga soo tirtiraysaa adigoonan xoog u sameyneynin
kadib waxaad sameynaysaa wejigaad dhaqaysaa wejiga markaad dhaqdid waxaad sameynaysaa waxa loo yaqaano exfoliance waa maxay exfoliance waxa waayay waxa maaragtay maqaarka dhintay ee maaragtay wejigaaga ku haray ama maqaarka wasaqda uu soo saaray oo wejigaaga maaragtay saaran isbuuci waxa lagaaga baahan yahay inaad laba waqti aad laba isbuuci laba mar inaad ka isticmaashid ee maaragtay aad wejigaaga ka qaadid maqaarka dhintay ee maaragtay wasaqda watay ee maqaarkaada saarna waynaad ka qaadid haddaad tahay qof wejigiisa chemical kusoo gubay oo maaragtay maqaarkiisa qafiif u yahay ee guduud badan haddaad tahay ha isticmaalin maadadaas iyada ah waa kuu sheegay markaad exfoliance-kaas habeen walba ma sameynaysid laba habeen ayaad sameynaysaa isbuuci laba habeen kale ayaad sameynaysaa anagoo sameynayana videoya idinkaga soo duubi doonaa laakiin inta waxaan iskugu sheegaynaa waxyaabihii aad sameyn lahayn habeenkii waay marka wejigii oo make-upka ama kareem qoraxda kuu marsanaa waxaad samaysay waxaad kusoo dhaqday marka u horeysay cleansing balmkii ee saliidii ee wejiga marka hore maaragtay subagii ee aad wejiga kusoo tirtirtay ee maaragtay si fudud wasaqda ku dhegneed wejiga kaaga soo saaray waad iska soo tirtirtay waxaad ku dhaqday face washkii waxaad samaysay exfoliance-kii ani hadda exfoliance pads baan isticmaalnaa suuf wejiga lagu tirtirto oo maadada glycolic acid la dhaho ay ku jirto isbuuci laba mar ayaa la isticmaalaa companigeena wuu gadaa halkanaa soo saaraya markaad exfoliance-ki samaysay waxaad ku xijinaysaa maaragtay haddaad waxaad ku xijinaysaa serumta ama ha noqoto niacinamide ama ha noqoto hyaluronic waxay rabta ha noqoto ayaad ku xijinaysaa markaad ku xijisid waxaad marsanaysaa kareemka qoyaanka wejiga siiyo mar walba subaxba waa muhiim kareemka qoyaanka wejiga siiyo aniga intaan isticmaalo intaas waaye kareemka qoyaanka wejiga siiyo ayaad marsanaysaa kadib waxaad marsanaysaa lip mask bishimaha lip maskiga la mariyo ama ha noqoto Vaseline ama ha noqoto maaragtay lip mask waxaad haysatay markaas iyada ayaad marinaysaa kadib waxaad marsanaysaa kareemka indhaha hoostooda la mariyo mar walbo aad wax marsanaysid ha marinin indhahaaga hoostooda kareemada aad marinaysid indhaha hoostooda waxaa loogu talagalay kareem u qaas ah ay soo saaraan warshadooyinka soo marka kareemka qaas ku ah indhaha hoostooda marso markaad seexanaysid waa inaad ku seexatid saatiin barkin oo saatiin ah inaad ku seexatid waay oo ku jirto xarqad saatiin oo ku jirto waay marka aad seexanaysid ha ku seexanin barkin ee maartay oo xarqad caadi ay ku jirto ha ku seexanin waa inaad ku seexatid saatiin halkana idin soo saaraya saatiinka siduu u egyahay habeenka kale oo aadan exfoliance-ka kale aad samaysanaynin waxaad isticmaalaysaa retinol hadduu wejigaaga maadada retinolka loo yaqaano uu la qabsaday ama aad hore u marsan jirtay habeen walba waa marsan kartaa laakiin hadday kugu cusub tahay waxaad ka isticmaalaysaa 1% ayaad ka bilaabaysaa ilaa 2% ayaad ka bilaabaysaa retinol ma aha prescription by the doctor waxaad ka helaysaa ma aha qasab inuu dhakhtarku qoro retinol waxaad ka helaysaa dukaamada meelaha cosmetic lagu gado laakiin waa inaad iska hubisid inay tahay 1% retinolka waa muhiim iyo collagen peptide collagen creamka wejiga la marsado asagana waa muhiim retinol wejiga maxay u qabataa retinol maxay tartaa retinol waxay kordhisaa wax soo saarka unugyada maqaarka waxay ka caawinaysaa duleelyada inay xirto wejiga duleelka wejiga duleelyada dadka wejiga duleelka loo kale inuu duleelka wejiga uu xirmo ay ka caawinaysaa retinol waxa kale wejigaada u sameynaysaa waxay soo kordhinaysaa maartay waxay soo kordhinaysaa ama soo produce gareynaysaa collagen waxaa la yiraahdaa lafta iyo maqaarka baruurta u dhaxayso ee protein laga helo ayaa la yiraahdaa waxay soo produce gareynaysaa ama waxay kordhinaysaa collagenka ay wejigaada ku kordhinaysaa waxay ka difaacaysaa inuu wejigaaga mean ama dadab ama premature age waxa loo yaqaano cimri degdega inuu maaragtay uu wejigaada galo ayay maartay ka ilaalinaysaa haddaad leedahayna oo muddo aawadidna way ka bixinaysaa oo wejigaaga waxa ka dhigaysaa weji maasha Allah tabarakallah oo kubacsan oo quruxsan oo maartay baby ah ayay ka dhigaysaa
retinol taasay muhiim ku tahay iyadana retinolku waa muhiim iyo collagen peptide-ka okay intaas marka waxaa idinkaga soo sheekeeyey subaxdii waxaan isticmaali lahayn iyo galabtii natural skin care waxaan waxyaabihii aan subaxdii isticmaali lahayn iyo waxyaabihii aan galabtii isticmaali lahayn ayaa hadda idinkaga sheekeeyey haddaad marka haaro leedahay waxaad haartaada u adeegsataa videoga waxaan ku ballan qaaday inaan caawa dhameeyo ka faa'iidaysta intii soo raacdo oo challenge kasoo qayb gasho waa maartay maasha allah haddaad haar leedahay waxaad u baahan tahay sida hore aan kuugu soo sheegay inaad biyo badan cabtid inaad caloosha bixisid inaad maaragtay exercise samaysid inaad maaragtay cabitaanada aan soo gelin doono cuntooyinka waxyaabaha iska ilaalinaysid oo dhan waxaan soo gelinayaa snapchat-ka halkaas igala soo xiriir haddii maaragta aad doonaysid inaad haartaasi skin care-ka aad ku bixinayso waxaa ka mid ah kojic acid waxaan kugula talinayaa inaad isticmaashid maadada loo yaqaano kojic acid-ka waxay caabisaa wejiga madmadowga waxyaabaha leh wejiyada madmadowga leh discoloration-ka ayay caabisaa maadadaas kojic acid-ka ah waxayna ku siinaysaa brightening at the same time haddana haddaad waqti geliso time gelisid waxay ka oo kojic acid oo sax haddaad heshid waay waxay ka caawinaysaa inay haarahaas iyo madmadowgaasi ay kaa yaraadaan hadday noqoto haartaada mid u baahato hydroquinine oo u baahan in maaragtay loo adeejisto maadooyinka adag wayna la xiriirtid dhakhtarkaaga dermatologist-ka haddaad hydroquinine isticmaashid haarta way soo noqonaysaa laakiin markaad isticmaashid oo haarta kaa baxdo kusoo bir challenge-geena insha allah kuguma soo noqonayso haddaa waxyaabaha aan sameyna aad samey haddaadan rabin inaan hydroquinine u isticmaasho aad dhakhtar la kulanto aadan rabin inta aan kuu sheegayo cabitaanada maaragtay exercise-ka biyaha badan oo la cabayo waxyaabahaas challenge-gaas dhan nagala soo qaybgal muddo waxaad wadaysaa ugu yaraan 3 bilood ah ugu 3 bilood kadib haartaada maasha allah tabaarakallah way baxaysaa ilaahay idinkiis biidnillaahi raxmaan challenge-ga nagu soo biir waxay u baahan tahay inaad waqti gelisid waxaan u maleynayaa videogan inaad dhamaysateen oo aad dhagihiina dhuuqdeen oo aad fahanteen snapchat-kan halkan idin soo saaray challenge-gu noo bilowday no more question chemical guriga ku yaara saacada ka bilaawata aruuri qashinka ku dar pizza life haween wanaagsan snapchat-ka igu soo darsada bari subaxda ayaa idin bilaabaya insha allah ma qabateen naag walba waxaa la rabaa inay dhexda soo xirato go-aankeeda kasoo go'do videoga dambe waxaa kaga hadli doonaa qaabka caloosha aan u jareyno jeexjeexa aan u bixineyno insha allah pizza life iyo exercise-ka aan sameyn